waa maxay xaasidnimo maxaase lagu gartaa xaasidnimada waxaan oran karnaa waa laba qaybood miduu qofku ku dhasho iyo miduu gadaal ka noqdo iyadoo ay ku kaliftay inuu xaasid noqdo wadciga adag ee ku soo koray ama marxaladaha kala duwan ee uu nolosha ka soo maray xaasidnimada waa wax qofka qalbigiisa ku jirta oo ku kalifaysa qofka ama ku qasbaysa inuu dadka xasdo si walbaba ha ahaato isagoo aan ka faa'iideyn waxbana haddaba waxaan kala qaadaynaa tan lagu dhasho iyo tan gadaal laga noqdo xaasidnimada lagu dhasho waa mid qofka iskaga abuuran taasoo aan odhan karno waaba qofka hobbigiisa oo uu ka helo waxayna ka soo bilaabataa xilliga carruurnimada tusaale ahaan ilmaha qaar waxaad arkaysaa ilmo kale intuu dadka waaweyn iska eego qaniinaya ama wax ku dhufanaya alaabtiisana ka tuuraya qalinkiisa ama kabihiisa mid ka mida waa ilmaha mar walba intay iska fiiriyaan qofka ay wax ku samaynayaan oo ah ilmo kale oo loodkooda ah wax dibindaabyo ah ku sameeya ama xitaa wax ka xanaajinaya ilmahaas waxaad ka dareemaysaa waxa uu ku samaynaya ilmaha kale oo uu kaga xanaajinayo inuu ku raaxaysanayo ama uu farxad ku dareemayo haddaad ku qabato ood weyddiiso waxa ku kalifay ma garanayo wax sabab ah saas ayuu ku weynaadaa xaasidnimadiisana wuu la weynaadaa waxa ayna gaarsiisaa heer xun uu qof walibaa la naco waxa wanaagsan waxaa kale oo ay gaarsiisaa heer uu ka naxo qof walba oo wax wanaagsan haysta oo uu ku fakaro siduu uga kala tuuri lahaa ama uu uga burburin lahaa shaygaasi haddaba tan lagu dhasho iyo tan gadaal uu qofku ka noqdaaba waxa ay ka siman yihiin dhaqanka iyo wax walba oo ay samaynayaan marka uu qofku weynaado maxaa lagu gartaa qofka xaasidka ah qofka xaasidka waxaa lagu gartaa waa dibindaabyo miiran waana mid ka shaqeeya gadaashaada si uu u furfuro xari kasta oo aad xirtid oo maslaxadaadu ku jirto weliba si dadban oo aadan iska garan ayuu sidaasi u sameeyaa qofka xaasidka waxaa lagu gartaa waa munaafiq ku isticmaalaya laba weji fiican oo aad ku taqaanid oo uu dadka ku siro si loo moodo qof fiican iyo weji u qarsoon oo cadowtinimo ah oo uu noloshaada rabo inuu ku gubo qofka xaasidka ah waxaa lagu gartaa inuu aad iskugu dardaro dadka isagoo iska dhigaya qof caawinaad badan asxaan badan runsheeg badan si aad isugu furfurto oo meelaha aad daciifka ka tahay uu ogaado si uu u helo waddada ugu fudud ee uu kugu baabi'in karo noloshaadana uu ku kala tuuri karo qofka xaasidka waxaa lagu gartaa xidhiir joogta oo ka badan sidii caadiga ahayd isaga oo ay ujeeddadiisu tahay si uu mar walba xogtaada iyo waxa kugu cusub noloshaadaba uu ogaado si uu hawshiisa u wato isagu adiguna aad u moodid saaxiib fiican oo kaa warhaya mar walba balse arrinku sidaas waa ka duwan yahay qofka xaasidka ah waa mid xam badan mar walbana ka sheekeeya dadka sharafta leh isaga oo dhaliil xun u raadinaya dadkaas wanaaggooda iyo guusha ay gaareen qofka xaasidka waa qof neceb oo mar walba jecel inuu dab ka dhex shido lamaanaha isqaba ama isguursan rabo oo isku faraxsan saaxiibada isku wanaagsan oo isjecel deriska isku wanaagsan walaalaha isku faraxsan waalidka iyo ilmihiisa iyo laba qof oo kasta oo wanaag ka dhexeeyo soomaaliduna waxay ku mahmahdaa hebel waa saddex neceb qofka xaasidka ah waa mid xanuunsanaya oo ka xanuunsanaya nimcada ilaahay dadkiisa u qaybinayo ee maalinlaha ah wuxuu uu jecel yahay in khaaliqa isaga inuu wax siiyo oo dadka oo dhammi aysan waxba ka soo gaarin nimcadaas dhibaatada haysata xaasidkana waxay tahay dagaal aan guul laga gaarin ayuu ku jiraa dharar iyo habeen qofka xaasidka waa mid ay ka maqan tahay xasiloonnida iyo farxadda oo aaminsan in wax kasta oo wanaagsan allah isaga ka qadiyey oo ku fakeraya dadka kale ayaa adiga kaa nasiib wanaagsan qofka xaasidka waa saaxiibka dhabta ah ee shayddaanka ama ka sii xag jira oo shayddaanka ayaa la qaatay waa qof xitaa markuu salaadaha ku jiro ku mashquulsan oo ku fakeraya siduu qof walaalkiisa u damiri lahaa ama uga baabi'in lahaa noloshiisa waa qof wakhtigiisa intuu badan ku lumiya baabi'inta iyo waxyeelaynta bini'aadamka balse waa mid mar walba ku fashilma dabinta iyo xumaanta uu samaynayo guulna aan ka gaarin qofka xaasidka waxaa ku yar iimaanka iyo kacabsashada rabbi subxaanahu wa tacaala waxaana u fudud wax walba uu cagta ku marin karo wanaagga dadka xitaa inuu ruuxda ka jiro qofka waa ay uga fududdahay koob biyaha uu cabo sababtoo ah cuqdadda iyo xumaanta qalbigiisa ka buuxda ayaa ilowsiisay alla kacabsiga iyo wixii uu la kulmi lahaa maalinta qiyaame qofka xaasidka ah waa maseerlow maseerku maaha keliya kan ay kala maseeraan labada isqaba ama xidhiirka leh balse kan xaasidku waa maseer uu ka maseyro qof wax wanaagsan haysta qof owlaad wanaagsan haysta qof lacag haysta qof wax bartay qof sharaf leh qof qurux badan iyo wixii la mid ah haddaba kuma soo koobi karno halkan xaasidka iyo tilmaamihiisa qof kasta oo calaamadahan iyo ka badanba leh waa muhiim in laga feejignaado loona duceeyo in rabbi soo hanuuniyo waxaa kaloo muhiima qofkii iska dareema xaasidnimo yar ama calaamadahan oo kale inuu isdaba qabto ilaahayna uu toobad keeno kana ducaysto in Allah ka dilo xididka xaasidnimo oo jirkiisa ku jira waayo xaasidnimadu waxay cibaadada qofka u cuntaa sida dabku dhuxusha u baabi'iyo oo dambas kaga dhigo oo kale
nebigeenna nabadgelye naxariis korkiisa allaha yeelay wuxuu yidhi xaasidnimada iyo iimaanku meel kuma wada kulmaan marka qof aan iimaan lahayn xaalka uu ku sugan yahay waad garan kartaa ilaahay qalbigeenna xiqdiga iyo xasadka ka fogeeyo waad mahadsantihiin dhammaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh